wasiirka biyaha Soomaaliland mudane Xuseen Axmed Cabdulle iyo wafdi ballaaran oo ka socota hay'adda caalamiga ee UNICEF ayaa maanta gelinkii dambe soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Gaabo waxaana wafdiga wasiirka ka hortagay duleedka magaalada dhammaanba mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee heer gobol iyo heer degmo madax dhaqameed iyo mas'uuliyiin tiro badan kuwaas oo soo dhaweyn maqaamkeedu sareeyay ku qaabilay wasiirka iyo wafdigiisa soo dhaweyntaasi ballaaran kadib waxa wasiirku warbaahinta uga xog warramay ujeedada socdaalkiisa soo dhaweyntan qiimaha leh iyo waqtiga aynu joognana aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa waxaanu idin sheegaynaa waxaanu u soconnaa ama aanu wadnaa biyihii oo nolosha caafimaadkii oo usna kaba sii muhiimsan waynu iswaraysan aad baanu mahadnaqaynaa qardaa idin siiyo fiiskii gobolka ee wasaaradda khayraadka biyaha Baritaan dhagax dhigaynaa wax daba socda biyo ballaarintii degmada Ceergaabo wax daba socda waxyaalo badan inta ku sii qancay iminka inta badan weydeen hadda waa salaamantiina imaantika wasiirka iyo wafdigiisa ayaa ku soo beegmaya bulshada reer Sanaag oo weli naawilaya wax qabadka xukuumadda madaxweyne Siilayo Cabdir Saafteera shabakada caalamiga ee warsomali.com Ceergaabo